سو براو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنب آدن الشيخ محمد والله يقاني آدن شينه oo shahiiday 11 May 7 wuxuu kamid ahaa hogaankii halgankii huweysnaa dib u xoreynta qaran ee SNM horseed ka ahayd bishii March 7 maalmihii aan ku jirnay shirweynihii shanaad ee caadiga ahaa ee SNM oo ku qabsoomay magaalada Adari Harar ee Itoobiya ayuu ka oogsaday meel ku beegnayd bartamihii waabkii shirweynaha oo koonfur xigtay waxaana milayga laga guntay murti ahayd waxaan soo jeedinayaa inaynaan khaldamin waa dagaal waxaynu ku jirnaa iskuma raali gelin karno waxa dhiig ku daadanayo halkan inaynu isku raali gelinno umaynaan iman aniguna maanta halkeedii ayaan taagnahay oo xisbiga wadani uma aan gelin uguna jiri maayo inaan cid ku raali geliyo ilaahay ayaa hordhaca raali gelinta iga mudan hambada raali gelintana shacbiga tabaalaysan ee hashoodii lagu hormaalay iyaga oo gaajaysan ayaa iga mudan waa sidii uu hadraawi u yidhi oo darajiye xil igu taxo uma korin darmaanta hore ayaan wasiiru soo noqday 5 bilood kadibna aniga ayaa madaxweynaha ka codsaday inuu xilka iga qaado wuu iga ogolaaday waanu ku mahadsanaa xisbiga wadani waxaan u galay inaan ka qayb qaato sixitaanka waxyaabaha aan islahaa waa ay khaldameen waxaana noo qorshaysnaa inaanu gudihiisa ka suurto gelinno isbeddel togan oo ka dhaca qaybo ka mida wajiyada nololeed ee dalka waayo aragnimadeedii gaabnayd waxaan ku ogaaday in aanu xalku ku jirin xukuumadda oo wax laga bedelo balse xalku ku jiro xisbiyada xukuumadaha dhala ama soo dhisa oo wax laga bedelo isma aan lahayn xisbiga wadani waxaad ugu tagaysaa xarun madhan xafiisyo madhan xurmo madhan iyo xilal madhan sidii aanan isu lahayn saluug badan ayaad xukuumadda ugu tagaysaa markii aan ka hawlgelayay ee aan wasiirka noqonayay taasina waa tasalowga iyo saluugga beertay saqaafahana keentay sariigashada iyo birmageydada siyaasadeed waa sunne aan kursiga loo sadqayn karin waayo aragnimada taban ee aan xukuumad iyo xisbiba kala kulmay waxa ugu mudan sida ay hawlgalladoodu u yihiin qosolku jabka iyo hugumka hadba waxa igu soo dhaca Beydul Sayid Maxamed Cabdilla Xasan naxariistii janna Ilaahay ka waraabiyo oo uu suugaanta ugu abtirinayay waxaanu yidhi haddii aanay luulidu ku taxnayn labacu waa been aan ku soo gunaanado tuduc aan ka soo qaatay maansadii dirsooc ee 6 Abriil 1990 Ibrahim Sheekh Saleebaan Galle ka tiriyay shirweynihii lixaad ee SNM ee ku qabsoomay magaalada Beligubadle intii u dhaxaysay 31 May ilaa 28 Abriil 90 waxaanu yidhi shaxda kama ilduufine sidaan damacsanaa iyo sida doodiyeelaa kala durugsanaadee haddaan duubi wada jira dadaalkaygii lagu helin dar alle abaalkay waxa dumay ku suure ugu dambaynna maanta oo ay taariikhdu tahay 5 bisha March 2016 waxaan iska casilay xilkii xogeyaha warfaafinta ee xisbiga wadani iyo xubinnimadii labadaba kama xumi inaan xaruntii iyo xilalkii madhnaa ka tago waxaan si aad iyo aad uga xumahay inaan ka tago 10,000 oo xisbiga xubna ka ah ama taageera oo gudaha iyo dibadba jooga oo iyaga oo niyadsan doonayay inay isbeddel khayr qaba oo togan dhaliyaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.